ma garanaysaa saddex qof oo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam yiri jannada gali maayaan weligood subxaan allah. waxaan kula wadaagayaa saddexdaas qof waxaa lambar kow ka ah qofka dayuuska ah. dayuus la yidhaha dayuus soomaalida waa isku caayaan, wax laga wada garan maayaan. dayuus waxaa laga wadaa qofka familigiisa xumaanta aan ka reebayn oo xumaanta ku dhiirigelinaya. masalan familigiisa waxay ku jiraan waxaan ilaahay raali ka ahayn, ma dhahayo waxaan wax wanaagsan maaha iska daaya, ma dhahayo raali buu uga yahay subxaan allah. lambar laba waxaa ka ah qofka qamriga caba oo qamriga daldala walciyaadu billaah, asagana jannada geli maayo buu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. lambar saddex waxaa ka ah qofka caqul waalidiinka ah, qofka labadiisa waalid ku caasiyey, labadiisa waalid aan wax san samaynayn, labadiisa waalid xaqooda inuu guda iska daayay, waxay raali ka yihiin aan samaynayn. saddexdaas qof wuxuu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam jannada geli maayaan. ilaahay waxaan ka magan galaynaa inuu saddexdaas naga dhigo subxaan allah. waxaan ilaahay ka baryaynaa aniga iyo idinkii dhammaanteen inuu jannada inoo kulmiyo insha allah. assalaamu calaykum waraxmat. ma garanaysaa nin saddex haween qabo oo aan mid afraad guursan karin? way jirtaa sax, waa nin saddex haween qabo mid afraad ma guursan karo. isku day kartaa jawaabteeda? anaa hadda kala wadaagaya haddaan garanayn. waxaa weeye afar haween buu qabay, mid buu furay, hal dalqad buu ku furay ama laba dalqad, waxbaa u dambeeya. ninkaasi haweeneydaas ilaa ay cuddada kaga idlaato ma guursan karo haweeney afraad, saddexdiisi unbuu qabayaa. ma garanaysaa nebigii aabihii gaalka ahaa inuu yahay nebi ibraahim calayhi salaam? ma garanaysaa saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam saxaabigii ugu cimriga dheeraa ee wax badan noolaa inuu yahay anas ibnu maalik? ma garanaysaa saxaabigii ahaa qaadimka rasuulka inuu yahay anas ibnu maalik? ma garanaysaa saxaabigii ku riyooday aadaanka salaada inuu yahay cabdullaahi ibnu sayd? ma garanaysaa saxaabigii ahaa gabyaagii rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu yahay xasan binu thaabit? ma garanaysaa saxaabigii la oran jiray jundub binu junaada inuu yahay abidar alqafaari? ma garanaysaa saxaabigii uu rasuulka oran jiray inoogu raaxee salaada inuu yahay bilaal binu rawaax? walaal fiidiyowgaa la wadaag asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. wassalaamu calaykum waraxma. wallaahi calaykum waraxma. ma garanaysaa todobada wax halaagta oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam yiri ka dheeraada? rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri ijtanibu sabca mawbiqaat, ka dheeraada todobada wax halaagta. asxaabada way weydiiyeen waxay dhaheen rasuulka ilaahayow maxay yihiin todobada wax halaagta? rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri ashirku billaah, waxaa ka mid ah waxaa lambar kow ka ah inaad ilaahay u shariik yeeshid subxaan allah. lambar laba waxaa ka ah asixru sixirka. lambar saddex waxaa ka ah qadlu nafsi allatii xarama allahu ilaa bilxaq, inaad dishid ama aad dishid naf ilaahay kaa xarimay. qofka muslimka ah dilkiisa saddex mar ayuu bannaan yahay. ma garanaysaa saddexdaas mar? saddex mar waxa weeyaan qofka markuu diinta islaamka ka baxo dilkiisa wuu bannaan yahay, meel alaal meeshii la arkaa lagu dilaya markuu islaamnimada kasii jeesto u gaaloobo. marka labaad qofka dilkiisa bannaan yahay waxa weeyaan markuu naf gooyo, qof naftii naf goysa naf ayadana waa la goynayaa. marka saddexaad qofka dilkiisa bannaan yahay waxa weeyaan marka uu sinaysto isaga oo guur soo maray, haweeney guur soo martay sinaysatay ama nin guur soo maray oo sinaysta. saddexda mar baa qofka muslimka dilkiisa bannaan yahay. marka qof muslima dilkiisa inaad dishid oo ilaahay kaa xarimay ka dheeraada buu yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxaa lambar afar ka ah inaad cuntid ribada. lambar shan waxaa ka ah inaad cuntid xoolaha agoonta, maalal yatiim inaad cuntid. lambar lix waxaa ka ah inaad ka carartid ama aad ka sii jeesatid maalinta jihaadka fii sabiilillahi loo jihaadayo aad ka dheeraatid. waxaa lambar todoba ka ah inaad gaf lagu tuuro gabdhaha muxsanaadka oo mu'minaadka ah haddana ay ogeyn gafkaas lagu tuuro ayagoona ogeyn gaf lagu tuuro. marka todobada uu yiri rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka dheeraada. fiidiyowgan asxaabtaada kale la wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.